السلام عليكم. dhacdadan maanta saaxiibayaal waxay wadataa kuleylkeeda sidaas awgeed waxa loo baahan yahay marka ugu horeysa in la isira qaboojiyo laakiin maxaa la isku qaboojin magic ha kan laakiin mask baa xidhan si loo cabaa kan laba mid in indhaha laydan qabto blur la saaro dina soo iyo in inta saalida sanadin siray السلام عليكم صاحبي يا سلية مقالكين ما أنت واحد كله وداقي دونا ميت كميدا كوحها كي بابك كود ويقول ياب كبر يعني ميت كميدا كوحها دنك فانك كوريان كود يقول ياب كبرنا تاريخ صومر مركا هدي صورة قال كوتاينا شيكا نلا دغيستid nala joog hadii naga daawanayso dhanka YouTube ka jaragto weynaha subscribe saaro ku soo biir sidoo kale hadii naga daawanayso Facebook page ka ay waqti xaadirkan ku qoran tahay de muallimo filo soo saarasna waa keena inkastoo waqti dhow update ku sameyn doona mawduuca khaniisiinta oo wadamada reer galbeedka caadi ka ah laakiin ilaa waqti xaadirkan dalka koonfurta Korea mawduucaasi ama se topicaasi waxa uu ka yahay topic xasaasi ah oo waxa ku nool faamilo dhanka diinta iyo dhaqanka wali ku adag inkastoo dadweynaha Korea qaar badan oo kamid ah ay mawduucaasi caadaysteen walibana ay jecel yihiin inay ku faanaan haddana dadka badankoodu waa ay dhibsadaan arrintaas dadka inta badan dhaqmada noocaas lagu arkana waa shakhsiyaadka caan sida meelahaas miidiyaha caanka ka ah dadkaasina badana in badan oo daawadayaashooda kamid ah waa ay saameeyaan si kasta ha haato haddaba waxaa jirta gabadh Korean ah oo gaar ahaan kasoo jeeda dalka koonfurta Korea oo lagu magacaabo Heriso gabadhaasi waxay ahayd gabadh model aad u qurux badan ajaayiba laakiin arrinta la yaab ka noqotay gabadhaasi waxa noqotay nin dadku waxay ku barteen yani gabadh qurux badan oo shidan oo inaba caadi ahayn oo model laakiin waxa la ogaaday gabadhan asal ahaanteeda in ayban nin ahayd sanadku 1990 ayaa gabadhan waxay go'aan ku gaadhay inay gabi ahaanba isbedesho oo from nin waa confuse mawduucan eeg nin baan ka hadlayaa haddana maadaama gabadh caan ku noqotay gabadh ba aniga laftarkii confuse وشيكا والن gabadhan ayada wiilkan ma gabadhan ma qofkani waxa uu ka soo guuray from nin to gabadh yani kaamil batatan jirkiisi gabi ahaanba qofkan waa bedelay qofkii arkaana haba yiraatay soo maayo qofkan beribo nin ahaan jiray sanka wajiga indhaha gebi waxay reebatay ma jirto gabadha hadaba sanadii 2001 ayaa markii u horeysay waxa ka soo muuqatay shirkad soo saarta agabka isqurxinta shirkadaasi ayaa muuqaaladooda xaysiima ka soo muuqatay iyadoo waxay xaysiinaysaa dadkii waa ka heleen muuqaalkeeda skinkeeda yani dadkii aaday runtii qaab ahaanteedii muuqaalkeeda oo la dhaceen oo qof cajaayib qurux badan ay warkayeen laakiin arrinta la yaabka ku noqotay markii dambe ayaa waxay ahayd kadib markii ogaadeen bini aadamkani inuu ahaa wiil qofkani oo rag markay arkeen qoftu shidana ya oran jireen waaba wiil ilaahay markii dadkii yaab wiil ilaahu noo dambi dhaaf war qoftii hadalhaynteeda badatay dadkii waa soo sheegay qoftii waxay siin jirtay waa nin waa maxay caanba ku soo noqotay oo waxay ka soo muuqatay warbaahinno kala duwan TV-yo maxay xaysiimo kala duwan suuqeedii baa u kala kacay qoftii ayada ahayd gudaha dalka Korea si weyn ay caan uga noqotay waxay ka soo muuqatay xaysiimo oo kale kuma istaagan waxay ka soo muuqatay filmaanta sidoo kale waxay gashay dunida K-popka funk iyo heesaha waxa arkay gabadhan oo runtii aad u la dhacay mid kamid ah mas'uuliyiinta shirkadaha muusikada shirkada ayuu ninkan lahaa gabadhan markii uu fiirsaday qaabkeedii sidii caanka u noqotay iyo durba sidoo hadalkeeda dadku markii ogaadeen in ay from nin ka timid gabadhu soo bedeshay inay hadalhaynteedu badatay oo caan noqotay ninkii asaga ahaa fikrad cajaayib ayaa ku soo degtay horta gabadhii buu yeedho ku yidhi kaale shaqo fiican ma ku hayaa ya qof yahay imika ninka odhan beri baad nin ahayd imika gabadh baan ku odhan gabadhan quruxleeyay shaqan ku hayaa nagu soo bir anaga kooxdana ku soo bir ninkii markuu arkay gabadhan sidii caan u noqotay waxa uu go'aan ku gaadhay in uu aasaaso koox gebigeeduba upside down yani dabagedisan maxaan uga jeedaa dad rag ahaan jiray oo niman isu bedelay in uu ka dhigo fanaaniin waxa uu go'aan ku gaadhay xariifkan inuu aasaaso koox idil ahaanteedba ka kooban khaniisiin maxaan ku yiri khaniisiin fikirtan ayada ah dadkii way la yaabeen waana ku xanaaqeen waa la dhaliilay waa laga soo horjeestay haddana sidaasi oo tahay fikradan waa u hirgashay dadku ayagoo nacaya oo isla dhaliila bay kooxdii caan ka dhigeenba kooxdiina caan bay noqotay sidii uu doonayay ayaana wax walba ugu suurta galay ninkani asaga ah waatay hadaba su'aasha meesha talaya waxay tahay go'aanka haba ku gaadhay ninkani xaquu ka keeni ilaa waxa loo baahan yahay in la raadiyo oo la soo helo shakhsiyaad rag ahaan jiray oo gabdho isu bedelo in la raadiyo oo la soo helo oo la dooro ayaa loo baahan moogta wuxuu sameeyay ninkaasi asaga ah inuu baahiyo uu yiraahdo tartan ayaa la galaya waxaan doonaynaa dad markii hore rag ahaan jiray oo hadda gabdho isu bedelay baan doonaynaa inaan kooxda ku soo biro fanaaniin ka dhigto caanka qofkii doonaya ciidamadaasi kamid ah
isa soo xaadiriyo ha yimaado imtixaan ayaa laga qaadaya oo la fiirinaya deedna haddii macquul noqoto sidaas ayaa lagu dooranaya haddaan ku idhaa ka waran waxa soo xaadiray oo yimid 400 oo qof dad gaadhaya 400 oo qof oo wada noocaasa oo wada gabdhaha hadda qurqurux badana laakiin isa soo bedelay oo gebigoodaba ahaan jiray niman baa meeshii isa soo buuxiyo 10 oo mid waliba wuxuu leeyahay waxaan doonaynaa kooxdaas ku soo biiro oo halkaasi yacni fanaan kaybaba noqdo caana okay 400 haddaba see loo xulay yaase xulaya cidda xulaysaay waa gabadhii ninkii mas-uulka haddaba waxa uu mas-uuliyadda u dhiibay dhanka doorashada gabadhii heriso ahayd waxaa ku yidhi adigu imtixaan ka qaad la sheekayso qofkii aad u aragta inuu macquul yahay inoo door sidii ayaa samaysay 400 oo qof bay waraysi ka qaaday la sheekaysatay dhaqankooda u fiirsatay codkooda wax walba tijaabisay ugu dambeyn 3 ayaa kala baxday gabadh lagu magacaabo waxay 400 oo qof ka dhex dooratay 3 qof saddexdaasi qof oo kale ah Shini oo ahayd 29 jir Sahara oo ahayd 25 jir iyo sidoo kale Pino oo ahayd 22 jir saddexdaasi qof ayaa 400 kala soo dhex baxday oo tiri ayaga ugu macquulsan oo heesin kara muuqaalkooduna soo jiidasho leh oo la daawan karaya waxa kale waa wada nin kuwan ayagu macquulsan oo naag weeg haddaba saaxiibayaal shirkadii waxay bilowday in ay shaqadeedu qabsadaan marka hore intaanay fankii hawlihii toos u gelin waxay bilowday in marka hore laga yar shaqeeyo ilaa waxaan rag bay ahaan jireen in la yara nuuriyo la yara qurxiyo 5 bilood oo waxay qaateen ka shaqeynta jirkooda guud iyo dansiga boodboodka iswalaaqa iyo umurahaas iyo sidoo kale 2 bilood oo codkooda ay tijaabinayeen oo dhanka codka iyo waxaas laga saxayay ugu dambeyn haddaba horta iyagoona ka wada dhammaan baa oo hawshii ku guda jira baa hal qof oo kale lagu soo daray markaasaas waxay ku ahaayeen 4 xubnood haddaba markii ay dhammaysteen trainingkii iyo tijaabooyinkii iyo hawlihii waxay bilaabeen inay shaqadooda qabsadaan heesihii la duubo codadkii la diyaariyo fiidiyoyaal aad u qurux badan music videos aad u qurux badan oo heer sare la soo duuduubay deetana la suuqeeyo فنانين عصب وجه عصب مقال عصب dadkii yani okay markii ugu horeysay ka horta way la yara dhaceen oo waraa fanaaniin cusub baa saaxada soo gashay laakiin waqti dheer maanay sii socon waxaan waa rag baa magac dumarka ku heesay oo gabi ahaan bedelan si kasto isaga shaqeeyaan isu qurxiyaana cid soo qarxisa waay maayaan bilowga hore dadweynuhu maana fahansanin oo waxay moodayaan gabdho iska caadiya laakiin waxay kadib dadku ku baraarugeen dad baa media ku jiro moogtahay oo aad moodaysid sirdoon inay yihiin wax saa u falanqeeyo oo fiirsada oo qofka qaab dhaqankiisa qaabkiisa dad baa u micno ku fahmay filimkii inay waxaan rag yihiin waxaana bilaabeen dadkaas inay soo qarxiyaan waraadeen waxaanad adeer ku raaxaysanaysan daawanaysan gabdha ahaan u daawanaysan waa rag ayaa dadkii waa yaabeen acuudu billah dib baa loo daawaday wallahi waxaan macquul maaha dumar maaha waxaan waa rag waraa qoladan way nasireen niman bay naaga nooga soo dhigeen shacabkii baa xanaaqay dadweynihii reer Korea baa xanaaqay markay ogaadeen waxaan heesaya gebigooduba inay rag yihiin oo mid gabadha xataa ku jirin yacni dee hal qof garanay 2 qof garan laakiin gebigooduba waa wada rag la bedelay waxay bilaabeen dadweynihii inay kacaan mudaharaadaan la yidhaahdo war dadkan hana laga qabto waxa shirkadii lagu eedeeyay inay dhiirigelinayso khaniisnimada iyo in la isbedeli karo inay umuro noocaas ay dhiirigelinayaan adoo ugu dambeyn waa shacabkii markay ku xanaaqeen dadkii oo dhan kaceen waxay bilaabeen kambaniyadii inay cancel dhahaan heesahoodii laga mamnuuco TV-yada raadiyoyada in meelahaasi laga baafiyo yacni cadaadis fara badan ayaa kooxdii la saaray sidaas ay tahay haddana ayadoo culayska intaasi leeg la saaray kooxdii ismaana dhiibin waxay bilaabeen inay buuxooda ay jujub iyo xoog ku sii wadaan shirkaddan waxay taagan tahay ay doonaysaa inay shacabka ka dhaadhiciso waxaan meesha taagtaaganay heesayahay inay gabdho yihiin oo aanay ahayn rag la soo bedelay beenta si kasta u dadid u qarqarisid u farsamaysid qalin ugu samaysid u qurxisid marmay dibadda soo bixi waxay bilaabeen inay daabacaan buug dhan oo doonayaan inay ku xaqiijiyaan waxaan inay yihiin dumar oo aanay ahayn rag sawiraan idin tusi maayo sawiraantaasi si kala oo jidhkoodii ay muuqdaan oo nooc kala edeb darra ah iyo joornaal waraaqay ku soo dhadhajiyeen qoraallo fara badan ku soo qoreen adu buug dhan oo 4taasi qof sawiraan qaab darra oo anshaxumaa laga soo qaadqaaday oo doonaya in suuqaasi la iibiyo lagu suuqeeyo shirkadaasina ay lacag buugaasi ay ka samayso ayay soo daabacday muddo ku qaadatay kharash badan ayaana buugaasi daabacadiisa iyo suuqeyntiisa iyo hawlihiisa kaga baxay horta sawiraantii akhlaaq xumada ahaa ee laga soo qaaday internetka waa ku baahan walibana si waaliya ayay baraha bulshada u qabsadeen oo qof waliba wuxuu islaa wareedha dadkan laga sheekeynayo bal noocay u egyihiin waxaan laleeyahay waa rag way isbedeleen bal han fiiriyo qof waliba curiosity ayaa maskaxdiisa ku jirta waxaas la bal waxaan ogow waxaan laga shacabkii oo dhan baa ka sheekeynaya dee adigu dadkii badankoodu way arkeen laakiin mushkiladda meesha taal ayaa waxay tahay buugaagtii hal nafar u iibsaday maanu jirin dee waayo qofka doqonka
niman jirkoodii qalin lagu sameeyey oo tobanaan qalin inta lagu sameeyey la bedelay oo gabadha laga dhigay jirkooda lacag ku bixinaysa jirkooda u daawado asagoo heli karaya gabdho caadi internetka meelaha ka daawado cidna lacag kumaanay bixin laakiin si free ah ayay dadku internetka ka daawadeen oo sawiraantoodii inta la qaada meel kasta lagu sheergareeyay oo meel kasta lagu baahiyay oo warwa kuwan waa noocan ayagoo dadku isla mar ahaantaana ku jeejeesayaan ay karbaashiyaan oo caynayaan aflagaadeynayaan oo leeyahay ruuxan ummadda magaalada ka qabta adigu suuqii waa uu ka soo xidhmay laakiin kooxdani isma dhiibayaan ee waxay doonayaan in ay qabacdaasi ku wadaan ay heesooda iyo fankooda soo wadaan ayuu haddaba sidaasi arrintu u socoto oo dadkiina boqolkiiba boqol aaminsan yihiin waxaan inaanay ahayn gabdho ee ay yihiin rag baa waxa soo baxday arrin kaloo cajaa'ib ah oo kooxdani carqalad ku noqon doonta arrinta soo baxday ayaa waxay tahay dalka koonfurta Kuuriya sharci ayaa ka yaala oo dhalinyarta ragga ah dacayiman markay gaadhaan waxa nin walba ku waajiba inuu askarinimo soo maro oo dalka u soo adeego marka su'aasha meesha taal ayaa waxay tahay ay shacabkiis weydiiyeen waxaan kulli rag bay ahaayeen waa la ogeynaa waxaan waa rag shaqadii ragga looga bartay ee waajibka ku ahayd nin waliba oo Kuuriyaan ah ma qaban doonaan oo askar ma noqon doonaan hadalhaynta arrintaasi ayaa miidiyaha qabsatay arrintaasi oo ku kaliftay afartii xubnood ee fanaaniinta mid kamid ah inuu hadlo qofkan ayaa qirtay oo yiri waan nahay rag waan ahaan jiray laakiin qalin ayaa isku sameynay waan isbedelay bal hadda fiir rag waan ahaan jiray laakiin waqti xaadirkan la joogo gabdhaanu nahay gabdhana askar ma noqon karaan ugu dambeyn waa qirateen inaa rag soo ahaydeen waa arrintan waxa weeyaan waa arrin dawladda loo baahan yahay inta arrinta farageliso haddaba arrintii markay dawladdii faragelisay ay bilowday inay baaritaan ku sameeyaan horta dee qofku haddii uu jinsigiisii iska bedelo uu jinsi kale isku bedelay yacni haddii uu wiil ahaa qofkaasi deetna uu gabadh iska dhigay waa macquul in qofkaasi gabadh ahaan loo aqoonsado dawladdu aqoonsato laakiin shuruudo ayaa meesha yaal shuruudahaasi meesha yaal dadkani ma soo buuxiyeen shuruudaha meesha yaal ayaa waxay tahay shartiga koowaad qofka haddii uu jinsigii raganimaday uu ka soo tegay uu gabadh noqday waa in uu dhanka dawladda uga diiwaan gashan yahay qofkani in uu yahay gabadh haddii lagu oran jiray Faarax Lugo Baasto waa in lagu bedelaa Xalima Minja Baasto ama base Khadiija Kuusi bal hadda fiiri waa in dawladdu qirsan tahay qofkani inuu isbedelay si ay dawladdu kuugu diiwaan geliso oo kuugu raacdo oo ay tiraado okay qofkan waa gabadh waynu qaadanayna shuruud ayaa loo baahan yahay qofkaasi inuu soo maro shuruudaasi hadaba maxay tahay shuruudaasi waxa weeyaan qofkani ma arrin caafimaad oo la soo dirsay darteed ayaa ku kaliftay qofkan inuu isbedelo matalooyin caafimaad oo dhakhaatiir la yaqaan oo dhakhaatiir ay bixiyeen oo qofkani kula talisay inuu isbedelo ayaa sabab u ah waalidiintiisu qofkaasi inuu isbedelo raali ma ka ahaayeen haddaba shuruudaasi afartan xubnood ma buuxiyeen arrinta cajaa'ibka ayaa waxay tahay faylkoodii markii dib loo fiiriyay gebigooda waxa ugu diiwaan gashan raganimadoodii hal qof oo loo diiwaan geliyay qofkani inuu yahay gabadh ma jiro oo shuruudihii de way ka soo bixi kar waayeen oo halkan waxa ka muuqata sawiraanta ay wiilasha ahaayeen iyo magacaanta ay wiilasha ahaayeen ba meeshan ugu qoran taasoo micnaheedu tahay dadkan way ku khasban yihiin waa khasab waajib bay ku tahay inay dalka u adeegaan oo askar noqdaan oo ragga u shaqeystaan yacni waajibaadkii ragga la marin jiray in la marinayo ayaa waajib ku ah khasab ku ah kooxda markay xaqiiqsadeen inay tala ku cadaatay oo aanay jirin dhan u dhaafaan inay dee askar noqdaan mooyaane waxay bilaabeen si dhuumashaa dalka isaga baxaan ee wadamada kale Thailand iyo Japan iyo meelahaasi ay fankoodii hawloodii ka wadaan Japan iyo wadamadaasi markay tageen dee shacabka sidoo kale wadankiiniba idin soo nacay annaga noo heesimaysaan heesahoodii iyo fankoodii adu meel fiican iyo siday u rabeen waa u socon waayay cid dhageysata waayeen cid ka qaada cid ka qaadata oo ka asmacda oo yiraahdaan okay waraha fanaanin oo dee waayeen intii karaankoodii dadaalkoodu way dadaaleen laakiin waxba siday u rabeen waa u socon waayeen arrintaasi ku galay markii dambe iska noqdaan kooxo yar oo isku duuban meelahaasi ka heesaysta night club-yada iyo meelaha dadku isugu yimaadaan bariiskooda ka dhacsada ugu dambeyn haddaba saaxiibayaal sanadii 2017 ayaa kooxdii gebigeediiba kala dhantaalatay iyadoo isla mar ahaantaana ay soo food saartay dhibaato dhanka dhaqaalaha ah dhaqaale burbur ayaa ku yimid taasi oo sababtay inuu mid walba u suuqiisa iska galo qaar waa la waayay gabadh waxay noqotay horta gabadh YouTube soo gasho oo halkaasi ka heesaysto oo heeso cover iyo wax noocaas soo duuduubta gabadha baraha bulshada ayaa waxay bilowday inay live stream ka samayso iyadoo cuntooniyo waxaasi cuncunaysa adigu waa kala dhantaalmeen kooxdii yacni dadweynuhu markuu si wada jira wax uga soo horjeesto khalaas waa say wax uga soo horjeedsan wax soconaya ma jiraan bal ka war haddii la aqbali lahaa oo heesooda meel kasta la geyn lahaa la dhegaysan lahaa la gadan lahaa arrintaasi waxay saameyn weyn ku noqon lahayd da'yarta dhalinyarta iyo caruuraha yaryar iyo ubadka dhalan doona ayaa saameyn iyo raad xun ku yeelan lahayd sababtoo ah kooxdan ujeedkeedu waxay ahayd inay fariin gudbiyaan fariintaasi oo ah inuu qofku isbedeli karayo oo gabadh iska dhigi karayo xaqiiqatan dee gabadhu marka gabadh tahay qurux badan tahay wiilkuna marka wiil yahay buu okay yahay